السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور عبد الكريم الريس، أخصائي الداخلية العامة والقلبية السلام بمستشفى عليكم. كافي. magacaygu waa Dr. آه، cabdikariim نبارك rays للأمة oo ku الإسلامية takhasusay بخروج cudurrada guud iyo شهر cudurrada رمضان wadnaha المبارك، kana howlgala isbitaalka kaafi وبخاصة ee نبارك muqdisho. للشعب الصومالي waxaa farxad بخروج weyni هذا ah الشهر. inaan ugu hambaliyo dhammaan muslimiinta في adduunka هذه gaar ahaan shacabka المناسبة Soomaaliyeed bilashada bisha أود barakeysan أن ee أوجه بعض Ramadaanka. الملاحظات waxaan sidoo kale jecelahay inaan soo ذوي gudbiyo الأمراض talooyin muhiim ah القلبية oo ku saabsan bukaanada qaba خلال cudurrada فترة wadnaha الصيام. inta lagu jiro xilliga بشكل soonka. عام soonku للصيام wuxuu leeyahay دور saameyn guud إيجابي، gaar ahaan bukaanada qaba تأثير cudurrada إيجابي wadnaha على كل مرضى si gaar كل ah أنواع way la الأمراض socdaan xaaladaha القلبية، wadnaha ما iyo عدا aan بعض sida wanaagsan loo الحالات التي maarayn. سنذكرها. bukaanka qaba الحالة cudur الأولى wadnaha ee lagu أي sameeyey qalliin مريض saddexdii bilood ee ka حصل horreeyey Ramadaanka waxaa احتشام fiican رئوي inuusan في soomin. خلال الثلاث bukaanada الأشهر qaba السابقة cudurrada wadnaha لرمضان waxay sidoo kale ka يفضل faa'iidaysan karaan عدم soonka صيامه. marka laga reebo bukaanka qabay أي cudur مريض wadnaha oo أجرى la قسطرة seexiyey isbitaalka قلبية خلال saddexdii bilood ee ka الأشهر horreeyey الثلاثة Ramadaanka السابقة ama kuwa aan sida wanaagsan loo kontaroolin لرمضان. xaaladooda caafimaad. كذلك يفضل عدم bukaanadan gaar ahaan kuwa qaba dhibaatooyinka xagga neefsashada ama dhiigbaxa waxaa lagula talinayaa inaysan soomin. أجرى xaaladaha عملية cudurrada قلب wadnaha iyo kelyaha isku dhafan خلال waxay noqon karaan kuwo halis ah haddii aan si taxadar leh loo maarayn. له عدم bukaanada الصيام. qaba xanuun wadna ama kelyaha بالنسبة way u لمرضى dheertay خطور xanuunka القلب sokorta iyo aan la kontaroolin. يفضل sidoo kale waa inaan is الصيام soomin له iyaguna. تأثير إيجابي أيضا ما bukaanada qaba عدا dhiig karka ayaan la kulmin dhibaatooyinka caafimaad sida dhiigbaxa maskaxda ama dhiig furanka ama istiroog waxaa lagula talinayaa inay soomaan, laakiin waa haddii ay la socdaan xaaladooda caafimaad oo ay raacaan talooyinka dhakhtarkooda. bukaanada qaba cudurrada wadnaha waxaa muhiim ah inay si joogta u qaataan daawooyinkooda inta lagu jiro Ramadaanka. waxaa laga maarmaan ah in loo sameeyo jadwal cusub oo daawada la xiriira taasoo la qaato waqtiga suxuurta iyo afurka iyadoo la raacayo talooyinka dhakhtarka gaarka ah. sidaan kor ku soo xusnay taxadarka ayaa saameynta ugu leh xaaladaha kale wadnaha, waxaana muhiim ah in la iska ilaaliyo cuntooyinka badan ee ay ku jiraan dufanka faraha badan iyo milixda. sidoo kale waxaa laga maarmaan ah in la raaco talooyinka dhakhtarka ee ku saabsan cuntooyinka si loo hubiyo caafimaad qabka wadnaha. waxaan idinku soo dhaweynaynaa isbitaalka kaafi. نرحب بكم في مشفى كافي. مبارك على الجميع هذا الشهر.